iyadoo la dhiirigelinaya badbaadada shacabka ayuu qabaa Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidanka qalabka sida in ciqaab uu la kulmi doono askari kasta oo ku kaca fal sharciga ka hor imanaya sida dilalka handadaada iyo dhibaatooyinka kale ee shacabka loo geysto. Gudoomiye Shuute waxa uu intaa raaciyay in sidoo kale sharciga la horkeenayo hoggaanka askari kasta oo inta dhibaato geysta haddana sharciga ka baxsada. waxaan u sheegaynaa askari haddii uu qalad galo lala aqoonsado sargaalka xukumiya askarigaasi waa inuu soo qabtaa. haddii uu soo qaban waayo askariga oo dib intuu geysto oo magaalada saas ku baxaa waxaa la dhaqan gelinaa nidaamkii ahay askari ma qaldama ee talihiisa qaldama la dhaqan gelinaa asigana mas'uuliyadda qaaday. qof kasta oo mas'uul ah oo sargaal ah oo gobolkaas taliye guud ilaa taliye urur ilaa taliye hurin kulligood waxaa laga rabaa qofka ay qabteen qofka askariga iyaga ka tirsan oo dhibaatada geystay amba qofka dharka ciidanka wato area-da ay xukumaan dhibaato ku geystay inay soo qabtaan ay garsoorka hor keenaan oo garsoorka go'aan ka gaaro. haddii saas sameey waayaan macnaheedu waxay noqonay askariga ma qaldamana qaladkaas waa loo diray talihiisana waa la ogyahay tilaabtana waa saameynay. garsoorka ciidamada qalabka sida guud ahaan waxaan ballan qaadaynaa anagoo garsoorka ah in aan shaqo adag ka bilaabi doono gobolkaasi hay-adaha ammaankuna sidoo madaxweynaha amrana ay gobolka ka shaqeeyaan garsoorkuna ay keenaan diyaar iyo heegan oo ku yahay meesha qofka lagu qabto inuu garsoorku tago oo meesha lagu xukumo hadduu ilaahay yiraahdo. dhowaan maxkamadda darajada koobaad ee ciidanka qalabka sida hoggaankeedu waxay amartay in mas'uuliyiinta dowladda hubkooda ay xakameeyaan si loo yareeyo dhibaatada shacabka lagu hayo. khamiistii kulanka golaha wasiirada ayaa laga sheegay in 10 maalin gudahood laga rabo mas'uuliyiinta dowladda iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay inay celiyaan hubka qaranka si tiro koob loogu sameeyo. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.